بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجكنا مانتا oo aan ku soo qaadanayno barnaamijkaas xigmadda maanta. xigmaddu waa waxyaabaha bini aadamka dhisa ee noloshooda ka qayb qaata. haddaba barnaamijkeena haddii aan isku taagno xigmaddu waa awoodda uu qofku ku fakaro isaga oo ka faa'iideysanaya aqoonta iyo khibradda nololeed ee uu leeyahay. tilmaanta dhabta ah ee waxgaradku ma ahan aqoonta ee waa xigmadda. xigmadyahankuna waa qofka guusha ka barta guuldaradana wax ka barta. kama cabsado inuu wax isku dayo waayo kama u cabsanayo inuu fashilmo. xigmaddu waa awoodda lagu helo aragtida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo yoolasha qofku leeyahay kuwooda ugu sarreeya isagoo bixinaya kharashka ugu yar. kasako khibradda nolosha dugsiyada xigmadaha waa buwaagta aan akhrino iyo dadka aad la kulanto. xigmadyahankuna ma sheego waxa uu yaqaano halka jaahilkuna uu sheego waxa uusan aqoonin. ha ka daayin inaad isweydiiso waxa aad nolosha ka doonayso. iyada ayaad ka dhex helaysaa xigmadda aad ku guulaysanayso. weligaa ha isweydiinin qof kale waxa uu nolosha ka doonayo waayo wax faa'iido ah ama xigmad ihi kuuguma jirto. qoraha ayaa jirta odhanaysa qofka uu caqligu u buuxsamo hadalka ayaa ku yaraada, qofka uu hadalku ku batana caqliga ayaa ku yar. xigmadyahanku waa qofka afkiisa xira inta ayna dadku dhagaha ka xiranin. waa qofka dhagihiisa fura inta aysan dadku afkooda furin. jaahilku wuxuu isu maleeyaa inuu yahay xigmadyahan. xigmadyahankuna waxa uu ogsoon yahay inuu yahay jaahil. xigmadyahanku uma ooyo fashilaada ku dhacday ee wixii fashilaadu ay bartay ayuu hub ka dhigtaa. isagu wuxuu garanayaa caqabaduhu inay nolosha ka dhigaan mid xiiso badan, farsamooyinka looga gudbana inay nolosha ka dhigaan mid macno badan leh. sida ay da-du u kasbato khibradda ayay caqliguna u kasbadaa xigmadda. xigmadda dhabta ah waxa ay tahay inaad kala ogaato waxa aad taqaan iyo waxaadan aqoonin. haddii jirku uu ku qurxoon yahay caafimaad qabka, naftu waxa ay ku qurxoon tahay xigmad qabka. xigmadyahanku wuxuu garanayaa in marar badan nolosha lagu kufo laakiin muddo gaaban loo ahaanayo fadhiid. laakiin fadhiidnimada waxaa ku waara midka garanaya inay muddo gaaban tahay. laakiin fadhiidnimada waxaa ku waara midka aan garanaynin inay muddo gaaban tahay. ogow wax walba inay suuragal kuu tahay haddii aad heshid xigmaddii kuu suuragelin lahayd. haddaad ka dhex maqan tahay fagaaraha halganka, ha dhowrin inaad ka dhex muuqato fagaaraha guusha. haddii la isu geeyo mugdiyada dunida ma qarin karaan shamac yar oo iifaya. sidaa darteed xigmaddu waa inaad shumac yar shidato. taas ayaa waxay dhaantaa inaad cimriga nacnadid madowga. mar walba wanaagga waxaa hela kuwa rumaysan inay helayaan wax ka wanaagsan. waxaa hela kuwa ku sabra. waxa ugu wanaagsan waxaa hela kuwa xigmadyahanka ah. ugu dambayntii xigmadyahanku waa qofka labada guuldarro dhexdood guul ka keena. casharada noloshu waa kuwa soo laalaabta inta uu qofku ka fahmayo. haddii aad doontid wax malahaaga aadan weligaa helaynin, dhaqaaq oo qabow hawl aadan weligaa u kicin. haddii culumta aanu ka baranno hanaanka uu uunku isu haysto, xigmaddu waxaan ka barannaa hanaanka ay noloshu isu hayso. daawadayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena maanta ee xigmadda. waa qalinkii sadiiq eenow iyo diyaarintii axmed sheekh cabdi. taniyo kulantideenna tan xigta waxaan isku ognahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.